السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودyaal kusoo dhawaada channelkiina barasho fadlan haddaad nagu cusub tahay ama ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato channelka faraha ama teed koofur subscribe saar kambalaalka fursad la socota fiidiyoda cusub aan soo gelin doono insha Allah maanta waxaan ka warmi doonaa 8 faa'iido oo ku jirta cunista muuska hore ayaa loo yidhi cunista muuska badani waa halis xitaa waxaa la sheegay in haddaad 6 xabo oo muus ah mar wada cunto inaad u dhiman karto haddaba oraahyadan run ma noqon karaan muusku wuxuu ka mid yahay khudradaha adduunka ugu caansan oo ay ka buuxaan faytamiino iyo macdano haddaba sheekada in muuska lagu dhiman karo wax aad u faafiyay ninka majaajilista ee Carol Pilkington haddaba sida ay sheegeen khubarada xagga cuntada waxaa muuska ku badan walaxda macdanta potassium oo jirka bini'aadamku u baahan yahay sida ay sheegtay Catherine Collins oo ka tirsan isbitaalka Church ku yaala London macdanta potassium ee jirka ku jirta waxay wax badan ka tartaa wada shaqaynta qaybaha kala duwan ee jirka taas oo muuska laga helo haddaba muuska waxaa ku jira walxo shucaaca nukliyeerka ah leh oo aan aad u badnayn dhibaatana aan lahayn caafimaadka iyo nolosha qofka midna mana jirto dhibaato gaar ah oo muusku leeyahay laakiin dadka kaliya xanuunka leh waa inay ka fogaadaan khudradaha potassium ay ku badan tahay sida muuska inay aad u cunaan haddaba warbixintan waxa aynu kusoo gudbin doonaa insha Allah faa'iidooyinka muusku leeyahay waana 8 faa'iido kuwaas oo ah kuwo wax ku ool ah waxaana kamid ah 1 yaraynta miisaanka muuska waxa uu gacan weyn ka geystaa inuu yaraado miisaanka qofka waxaana ku jira maado lagu magacaabo carbohydrate oo la dagaalanta baruurta iyo dufanka sidoo kale waxay qayb ka qaadataa inuu miisaanka qofku hoos u dhaco 2 awoodsiin muuska waxa uu leeyahay awoodsiin dheeri ah oo jirka siiyo waxaana inta badan lagu booriyaa dadka sameeya alaamintada inay cunaan muuska ka hor inta aysan sameyn alaamintada kaasi oo jira siyaadinaya awood dheeri ah oo u suurtagelinaysa inuu alaamiteeyo 90 daqiiqo oo xiriir ah 3 waxa uu daawo yahay habdhiska dheefshiidka iyo calool fadhiga waxaa ku jira muuska nooc ka mid ah borotiinka geedaha waxayna qayb ka qaataan inuu si wanaagsan u shaqeeyo habdhiska dheefshiidku iyo inuu jilciyo caloosha isagoo wax daawo ah aan loo kaalmaysanin wax dawooyin ah waxa uu la dagaalamaa muuska inay caloosha fadhiisato 4 waxa uu daawo yahay aashitada waxa uu ka shaqeeyaa muusku inuu daaweeyo oo uu yareeyo aashitada caloosha si degdeg ah 5 waxa uu daawo yahay dadka caba sigaarka waxa uu daawo caafimaad u yahay dadka caba sigaarka kaasi oo ka saaro wasakhda sigaarka ka saaro waxa uuna yareeyaa saameynta uu sigaarku ku leeyahay jirka waxaana ku jira koox fitamiino ah oo ka shaqeeya inay yareeyaan saameynta xun uu ku yeelan karo sigaarku jirka 6 waxa uu caafimaad u yahay wadnaha potassium waa cunsur aasaasi ah waxa uuna ka shaqeeyaa inuu ilaaliyo inuu wadnuhu si nabadgelyo ah u shaqeeyo waxa uuna habeeyaa dhiig karka cudurkan cuntooyinka laga helo waxaa ka mid ah muuska cunista muuska waxay yareysaa cudurrada ku dhaca wadnaha wadna istaaga 7 waxaa ilaaliya caafimaadka kelyaha muuska oo la cuno toddobaadkii marar dhowr ah waxa uu yareeyaa cudurrada ku dhaca kelyaha 50% maxaa yeelay waxaa ku jira cunsurka potassium kaasoo ka shaqeeya inay kelyuhu si caafimaad leh ku shaqeeyaan qodobka u dambeeya oo ah qodob 8 waxa uu la dagaalamaa gabowga muuska waxaa ku jira faytamiino aad u sarreeya kuwaas oo ay ka mid yihiin faytamin A sidoo kale faytamin C waxaa ku jira aashitooyin diidaya inay timaado gabow degdeg ah haddaba daawada cashirkeeni maanta intaas ku eegyahay oo ah faa'iidooyinka laga helo muuska ama cunida muuska 8 faa'iido oo ah 8 faa'iido wax ku ool ah waxaa jira faa'iidooyin kale oo badan oo muuska laga helo balse waxaan ku soo koobnay 8 ugu caansanaa marka daawada mar labaad waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe saarto kambalaalka furto sad la socoto fiidiyoda cusub insha Allah aan soo gelin doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like, share, comment.